qurba joogta ka soo jeeda degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa deeq caawimo oo isugu jirta bariis, daqiiq iyo saliid soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameynta badan ku yeesheen ee ku nool deegaanada Yagoori, Dhariix iyo Sincaro, Ceeriyaan iyo Galyaqaac. deeqdaas oo la gaarsiiyay dad gaaraya 154 qoys. qurba joogta oo qaybinta deeqdaas u soo wakiilatay Sheekh Saalax Cawad Caateeye isagoo ka warbixinaya ulajeedka deeqdan waxa uu yiri raashinka ay soo dirtay jahliyada dibadda aan ka qaybinaynay raashinkaas oo ka koobnaa 4 goobood waana maanta joogno Galyaqaac ugu dambeysay oo ahaa Ceeriyaan oo 30 qoys Dhariix oo 20 qoys Galyaqaac oo maanta joogno oo ah 30 qoys iyo Sincaro oo iyana 40 qoys ahayd 120 ka qoys bay noo soo direen qolada Hargeysa oo ka yimid xagga jahliyada dibadda 120 qoys baan gaarsiinay sida shaashada insha Allah taala ka arki doontaan waana qaybinay maantana oo ugu dambeyntii waan joognaa Galyaqaac oo ku qaybinayna sida aragtaan runtii kulli dadku baahida way iska badan tahay waana la jilicsan yahay Ilaahay dadka baahida ka saara meel kasta aanu tagno iyo tuulo kasta aanu tagno cabashadu way badan tahay oo baahida iyo way kala yara badan yihiin Ilaahay baynu la cabanayna idinkuna aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin halka ka soo saarteena waxaan Ilaahay uga baryaynaa idinka baryaynaa inuu wax ka roon idinku bedelo oo maalinta iyo malqaan miisaankiina xasanaadka idinku daro kulli intaas ku soo koobaya dadka raashinkii iyo wixina waa yaalin oo la qaybinaya oo aragtaan geesta kale waxa iyaguna dhankooda uga mahadnaqay walaalahooda ugu deeqay raashinkan caawimada ah mas'uuliyiinta deegaanadaas iyo qaar ka mid ah dadka la guddoonsiiyay raashinkan waxayna yiraahdeen waxaan mahadnaqayaa jahliyada noo keentay raashinkan wuxuu ka kooban yahay 20 qoys halka wax lagu guddoonsiiyay Axmed Mursal iyo Saalax Cawad dadkii waa aragtaan oo fadhiya halkan waxaan ugu qaybinay raashin dhan 40 qoys 40 qoys oo kii Sincaro ay keeneen jahliyadu way sideen Saalax Cawad iyo TV Universal aniga odaygii magaalada Galbar waaqo waxaan u sheegay waxaan horta mahadnaqaynaa Ilaah inuu abuurtay marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa jahliyadii keentay 30 kiish ee uu siday Saalax Cawad waanu ka guddoonay waanu ka haynaa deegaanka Sincaro hadaan lahayn raashinkii waa loo yimi wuuna soo gaaray si fiican baan loogu qaybiyay waxaan u mahadnaqayaa jahliyada bahood ee caawimada soo gaarsiiyay 30 qoys aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deegaanka reer Ceeriya raashinkaas 30 qoys bay soo gaaray jahliyada noo soo dhigtay waana mahadna waa ugu naqaynaa 30 qoys dadkuna inta waa ka badan yahay ilkadeena mahad baan ugu celinaynaa Ilaahay baan horta mahadnaqaynaa Ilaahay ina abuurtay nimcada iyo nabadgelyada iyo suuqanka jahliyada noo keentay nimcada raashintana waa u mahad celinaynaa Axmed Mursal Askar TV caalamiga Universal Ceelaf Weyn.